magacaygu waa xasan colaad. Halkan waxaan rabaa inaan tacsi uga diro ummada Soomaaliyeed dhammaan dhibaatadii ka dhacday magaalada Muqdisho. Xaqiiqatan markii aad eegto dhibaatada Muqdisho ka dhacday waa wax soo noqnoqday, waa wax ummada Soomaaliyeed ee Muslimka ah murugo weyn ku reebay. Waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed, eheladii iyo qaraabadii dadka uga dhinteen. Khaasatan waxaan halkan tacsi tiiraanyada uga dirayaa qoyskayga. Allah u naxariistay abtigay Nabadoon Axmed Diiriye iyo walaalkay Doctor Maxamed Cabdiqaadir. Waxaa meeshaas ku naf waayey kumanaan dad Soomaaliyeed ah. Waxa lagu dilayna aanan la aqoon, waxa kaliya loo dilayna ay tahay maxaa Soomaali u tihiin. xaqiiqatan dareenkayga ma cabiri kara, laakiin Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa ummaddan inuu wax ka dulqaado dhibaatadan. Runtii waxa isweydiin mudan waxa ay tahay inaan ogaano dhulkan yaa iskale, dhulkan yaa iskale, dhulkan iyo dadkan yaa lagu haleeyay. Waxaan ognaa Soomaalidu waxay dhahdaa far kaligeed fool ma dhaqdo. Waxa loola jeedo waxa ay tahay mas-uul iyo qof iyo laba keligii dhibaatadan ka hortagi kara. Dhibaatadan waxaa loo baahan yahay in si wadajiro looga hortago, in dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay kacaan, ay muujiyaan waddankan inay ayagu leeyihiin. Dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed, ummaddan cidna uma maqna, ceelna uma qodno. Waxa la dilaayo, waxa dhibaatada loo geysanayo, waxa la qarxinayo waa dadkeennii, waa hooyooyinkeen, waa aabbayaasheen, waa waalidkeennii. Xaqiiqatan dhibaato ka weyn iyo xanuun ka weyn ma jiro 2 maalmood in qof Soomaaliyeed oo muslina inuu ku hoos jiro guryo burburay hoostooda. Xanuun ka weyn ma jiro. Ilaa haddana ummaddii ay isweysan tahay, dhibaatadu intii ay ka ballaaran tahay. Intaan sidaan ognahay dhibaatadan maanta dhacday waa mid waddankeena, dhibaatooyinkii dhacay waa mid ugu xanuunka badnayd waay. Haddii aan cashir iyo duruus ka qaadan weynana waxa ay dhibaato weyn u tahay magaca Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan dadka xusuusiyo, aan maanse yar ku xusuusiyo, bal dadkan iyo dhulkan waryaa iskale yaa u maqan, yaa lagu haleeyay. Dhulku waa astaanteenna, dhaxal iyo dhigaal weeye, cidna gaarumay dhaansan, midka dheefta aan haysan kan dhargoo barwaaqaysan. Odayaal dhaqmeedkoo dhan, siyaasiga isdhuudhuuba, midka dhiiran ee taagan kan dhaliisha raarraadsha. Hooyiya dhallaankeeda, culummada tacliintoo dhan, inta dhaqanka Soomaali dhisu yahay ardaagoodu. Mise garan dhammaanteena waxa dhilay quluubteenni, dhogortiina naga qaaday, wadhurwaayo soo taagan, marna cunay dhallaankeenni, marna dhiibay sharafteenni. Dhararahan isdaba yaalla dhacdadiiyo ujeedkeeda, waxa dhaaya arag yeesha nimay dhibi xumaantiiye. Dhalxan arag hadduu yeesho waxna uma bidhaamaane, balse qoomka wada dhiiban dhumucdiiyo lixaadoodii, iyaguun isula dhuunta dhimashada ku raaxaysta. Wallan nabadi dhidib yeelan, dhulku uu barwaaqoobin, dhacdiidna loo seexan. Wallan dhoodi iyo faarax ama ina dhufaan geesi ummadyaha idiin dhaamin. Inta geesi wada dhiiran dhayal yahay dadaalkiisu, inta jaahil dhaanteeyey dhoohana ilaah mooga aan dhigan tacliin dhowrsan dhaxalkiina uu qaybsho. Inta aan la dhowraynin dhiiggii ilaah reebay dadku dhaga nuglaanaynin, waxaan dhowrta ma aqaane dadkan wada dhufaanoobay tala dhiiran aan haynin. Dunidan dhammaadkaana iilkaa kollay dhaamee, xarar dhooba lagu qooshay dhagax weyn ha lay saaro. Karfantayda ii dhuuja yaan ina dhufaan geesi maandeeq raggii dhiibay iga dhufan xabaashayda.